Bismillahirrahmanirrahiim. Fadlan subscribe sar channel-keena sidoo kalena gambaleelka furo si uusan kugu dhaafin wararka tirada badan iyo xogaha xasaasiga ah aynu halkan soo gelino. Waxaan kaloo kaa codsanaynaa muuqaalkan haddii ku soo gaaray inaad sii share garayso sidoo kalena like sar. Wahagaynu guda galno warkeena. Gudiyada ay ku midaysan yihiin culimada Mandera ayaa kulan ka yeeshay dhaqaaqyada ciidan ay ka wadaan dowladda federaalka iyo Jubbaland ee ka kala taagan magaalada Mandera iyo balad Xaawo oo daris ah. Waxa ay soo jeediyeen in ciidamada Jubbaland iyo wasiirka amniga maamulkaasi oo ay la socdaan laga saaro magaalada Mandera, taasina ay tahay xalka kaliya ee looga baaqsan karo dagaalka ka dhaca magaaladooda. Sheekh Cabdullaahi Xuseen Bulle oo ka mid ah madaxda imaamyada Mandera oo kulanka ka hadlay waxa uu sheegay in ciidamo uu wato Cabdirashiid Janan ay saldhigyo ka samaysteen inta u dhaxaysa magaaladooda BB1 iyo Mandera, balse dowladda Kenya iska indhatirayso sida ay u saari lahayd. Waxaan cambaaraynaynaa in ciidamada militariga ee ka soo horjeeda dowladda Soomaaliya in ay meeshaas noo fadhiyaan. Midda kale, ciidamada ninka hogaaminaya waa nin adduunka oo dhan ay isku waafaqeen inuu yahay nin dadka dhibaateeya. Marka nin adduunka dhan uu raadinayo in magaaladeena Mandera lagu dhaxayo waa sharci darro, ayuu yiri Sheekh Cabdullaahi. Dowladda Kenya waxaa saaran cadaadis kaga imaanaya qaybaha kala duwan ee Mandera, waxaana uu salka ku hayaa sidii wasiirka amniga Jubbaland iyo ciidamada la socda looga saari lahaa magaaladaasi. Maamulka magaalada Mandera dhawaan waxa uu sheegay inaanu suurtagal noqonayn in dowladda Kenya ay caawasho ka keento xaaladda amni ee waqooyi bari Kenya iyo inay ku sugnaadaan ciidamo hubeysan oo Soomaali ah isagana kala gudba soodinta labada dal. Waxaana uu gudoomiyaha magaalada Mandera codsaday in Cabdirashiid Janan iyo ciidanka tirada yar ee xuduudda Kenya ku sugan in laga saaro magaaladaasi. Magaalada Mandera ayaa laga sheegayaa cabsi dagaal oo badan iyadoo magaaladaasi ay ku sugan yihiin ciidamo uu wato Cabdirashiid Janan, ciidamada dowladda federaalka ah oo ugu horeeyaan kuwa danabna ay u dhow yihiin oo mar kasta laga yaabo inay weerar ku qaadaan, taas oo culays weyn ku keentay dadka reer